iyadoo aynu ognahay in macnaha hard work inaad samaysid ama shaqo culus maartay aad samaysid iyo isla markaas in aad fikrad cusub haysatid labadaaba inay muhiim u yihiin in aad horumar noloshaada ka samaysid haddana sidaas si lamida waxaa muhiim u ah noloshaada awoodii aad fikradii fiicnayd ama maaragtay maskaxdii fiicnayd aad curisay ama maaragtay qorshihii wanaagsanaa aad la timaaday awoodii aad ku gudbin lahayd oo dadka uga dhaadhici lahayd taasina sida ay kuwaas laftirkooda muhiim u yihiin hard work iyo maaragtay dilay ku idmayo good idea sida muhiim u yihiin ayay sidoo kale awoodii aad wax u soo jeedin lahaydna muhiim u tahay maanta koorsadeennan waxaynu ku arki doonaa eeba idinkii waxa la yiraahdo presentation skills presentation waa soo jeedin skills waa xirfad marka awoodda ama xirfadda wax soo jeedinta ayaynu arki doonaa eeba idinkii wax soo jeedinta ama xirfadda wax soo jeedinta xaqiiqdii markii maanta laga hadlayo ganacsiga maanta iyo ganacsi ha noqoto ama siyaasad ku jir ama meel kaleba ku jir marba haddii aad bulshada dhiirigelinaysid ama la xiriiraysid waxaad u baahan tahay inaad awood u leedahay xirfadda wax soo jeedinta marka runtii markaad hal qof wax u sheegaysid waxaa laga yaabaa hadalku inuu isu ka haysto oo uusan kaa khaldamin oo aad sidaa rabtay wax ugu sheegtay sometimes haddii laakiin dadku xoogaa ay bataan waxaa laga yaabaa oo lagu dhaho halkaa fuul maxaa dhahdaa intaad fuushid maxaa dhahdaa meesha la dhihi jiray podiumkii ama mimbarkii intaad maaragtay kortid inaad maaragtay soo jeedisid fikradaadii ama cilmigaadii ama ka dhaadhicisid dadka qorshaha awadatay inay kula raacaan ama qorshihii maaragtay kula qaataan runtii waxay u baahan tahay xirfad dheeri ah ayay u baahan tahay tusaale fudud waxaad isweydiinaysaa macallimiinta hadda qaybtood marka ay rabaan inay ardayga cashir u jeediyaan ayagoo sabuurada ku mashquulaya ama iyagoo hoos u jeesanaya sidaan oo kale ama iyagoo ficilo kale samaynaya ayaad arkaysaa runtii waxaa taas ku muuqata inuu jiro gaab ama xoogaa aqoon la-aan qofkaas ka haysata dhanka wax soo jeedinta waxaad arkaysaa qof masaajid ka qudbaynaya oo maanta oo dhan codka kor u qaadaya oo ma aragtay qofkii dhagihii ay qofkii kale ay qarxayaan maadaama maanta oo dhan codka kor loo qaadayo halka loogu talagalay codka meelaha muhiimka ah keliya in kor loo qaado meelaha qaybtoodna lagu wado cod degan oo normal lagu wado waxaad arkaysaa mar inaad u tagtay qof inaad qorshe ka soo dhaadhicisid meeshii aad tagtid ama dad gruuba aad koox barnaamij ka soo dhaadhicisid haddana meeshii dagaal iyo buuq uu ka dhashado adigii goolkii aad rabtay ama yoolkaadina aadan meesha gaarin sometimes mar inaad qof dood la bilowdid ama hadal la bilowdid haddana aad maxaa la yiraahdaa wixii aad ugu imaatayba xitaa aad garan weyd hadhow markii aad maartay barnaamijka aad ama doodii ay dheeraata aad dhahdani horta maxaan kuugu imid walaalo aad dhahdid oo kale ayaa laga yaabaa inaad baratid marka presentation skillska ama xirfadda wax soo jeedinta waxay si wanaagsan kaaga anfacaysaa inaad guul ka gaartid inaad awood u yeelatid guulna ka gaartid inaad dadka ka gadid barnaamijkii aad adigu gadaysay ha noqoto ganacsi alaab ama adeeg aad galaysid adeeg ama alaab aynu dhahno aad gadaysid ha noqoto fikrad aad rabto qofku inuu kula qaato iskaa wax u qabsaa maybe ha noqoto fikrad siyaasadeed ha noqoto qorshe aad doonaysay inaad isbeddel ka samaysid dhammaantood waxaad u baahan tahay xirfadda wax soo jeedinta haddii aadan xirfad wax soo jeedinta lahayn waxaa laga yaabaa buuq iyo dagaal inuu hadalkaadii iyo muran uu ka dhasho waxaa laga yaabaa meeshii aad wax raadinaysay inaad ku heshid ama aad doonaysay in wax lagula qaato in adigii lagu caayo lagu cambaareeyo lagula dagaalamo laakiin marka aad awood u leedahay xirfadda wax soo jeedinta waxaad awood u leedahay ganacsi siyaasad iyo wix walbo aad ku jirtid inaad guul si fudud uga gaartid iyo runtii waxbarasho salaf macal shakhsi ahaantaada ayay ku anfacaysaa eeba idinkii koorsadan waxaynu si fula ugu baran doonaa cilmiga wax soo jeedinta eeba idinkii markaad koorsadan dhamaysid waxaad awood u yeelan doontaa inaad fahantid farsamooyinka la adeegsado sida wax loo soo jeedsho isla markaa waxaad fahmi doontaa maxay tahay nidaamka aad maraysid si aad wax u soo jeedisid maxay tahay waxyaabaha ay tahay inaad iska ilaalisid maxay tahay waxyaabaha ay tahay inaad ka faa'iidaysatid maxay tahay waxyaabaha lagaa rabo in aad samaysid si wax soo jeedintaadu ay guul ugu dhammaato aad ayaan kugu mahad celinayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
marka laga hadlayo presentation skillska waxaa la yiraahdaa the biggest problem with communication is the illusion that it has been accomplished. macnaha markii presentation ama wax soo jeedinta laga hadlayo waxa weeye dhibka ugu weyn oo wax soo jeedinta waxa weeye illusionka ama dareenka ah in la gaaray yoolkii aad rabtay iyo inaadan gaarin sidaad ku kul ogaan lahayd ay su'aasha ugu weynta marka aad dhageysanaysid oo qof wax soo jeedinaya su'aalahan su'aalaha ugu horreeya isweydiinaysa wax weeye maxaa ka qaldanaa qofkan qaabka wax soo jeedinaya ama adigu laftirkaadu waxaad isweydiin kartaa markaad wax soo jeedisid maxaa aniga iga qaldanaa markaan wax soo jeedinayo sidoo kale su'aalaha kale aan isweydiin karno wax weeye what is your vision of the ideal presenter maxaa la yiraahdaa qofkii wax soo jeedinayay visionkaadii ama aragtidaad ka qaadatay maxaynu ku tilmaami karnaa waxaa jirta marka hadal xigmada oo dhahaya great speaker qofka si fiican wax soo jeediya wuxuu nagu qanciyaa inaka ma ahan awood wuxuu nagu qanciyaa isagoo maxaa la yiraahdaa wuxuu aaminsan yahay naga garanay marka technically qaabka English aan waxay u tahay I always think a great speaker convinces us not by force of reasoning but because he is visibly enjoying the beliefs he wants us to accept. halka marka waxaynu ka faa'iidi karnaa wax weeye marka aragtid dad inaad wax soo jeedisid ama dad wax ka dhaadhicisid waxay rabtaba ha noqoto aad soo jeedinaysid waxa laga doonayaa in aad waxaan aad gadaysid adiga ay ka dhaadhacsan yihiin sometimes qofku waxa la rabaa inuu gado okiyalkaas oo kale inuu qofka gado okiyalkii marka adigii kaama dhaadhacsana ma fahansanid waxa uu yahay ma garanaysid sida loo isticmaalo ma garanaysid waxa la xiriira dhammaantood ma garanaysid haddana waxaad rabtaa inaad qof ka dhaadhicisid oo qof ka gadid oo qof kula qaato sida macquul ku tahay waxaad arkaysaa 90% ama 80% dadka wax gadaya maanta ama dadka raba inay wax ka dhaadhiciyaan ma aragtay siba dadka wax gada specifically ma yaqaanaan waxa ay rabaan inay gadaan dadka marka inta badan guuleystay ama ganacsiga ku guuleystay waxaad arkaysaa waxa ay gadayaan ay ka badiyaan maxaa si wanaagsan u yaqaanaan wixii muhiim ah inaad ku noqotid khabiir waxaan sida u jarjaran yihiin iyo sida u samaysan yihiin yaqaan laakiin waxa aad gadaysid inaad fahamsan tahay waxyaabihii aasaasiga ah oo dhanna aad garanaysid ayaa laga doonayaa sidaas oo kale haddii aad rabtid inaad fikrad gadid ama cilmi gadid waxaa laga doonayaa in fikradii ama cilmiga aad gadaysid marka hore horta adigu aad iska soo dhaadhicisid marka hore intaad qol isku soo xirtid inaad isla hadashid oo aad dhahdid haddii aan maxaa la yiraahdaa hadalkan bal su'aalo iska weydiisid waxaan wax macquula miya waxaan wax la qaadan kara miya sidaas oo kale inaad soo weydiisid marka xigmadda ugu weyn oo casharkeena ka qaadanayna waxa weeye waxa aad gadaysid qaabka kaliya ama ugu fiican oo aad ku gudbin kartid waa marka adiga dadkii ku dhageysanayay ay u arkaan inaan waxaan aad adigu aaminsan tahay oo ay dhab ka tahay laakiin haddii ay arkaan waxa aad gadaysid inuusan ahayn wax maxaa la yiraahdaa la isku halayn karo qofkii wuu ka baqayaa ma fahamtay wixii isagoo fududaa wixii wax laga yaabo inuu ka yara baqo wixii aad gadaysay ama fikrad ha noqoto ama idea ama dhahno ama surface ha noqdo ama product ha noqdo marka xigmaddu waxa ama cilmi ha noqdo wax hartid kale laakiin wixii inaad adiga ay ka dhacsan yihiin ayaa muhiima oo aaminsan tahay oo sida qof qalbiga ka hadlaya aad qofkii wixii aad uga dhacsan marka si aad taa u samaysid waxaa la doonayaa wax walba aad gadaysid ama aad maartay soo gudbinaysid inaad marka hore iska soo dhaadhicisid waqtina gelisid si marka ay u fududaato in qofkii ideal presenterka ah ama ideal maartay qofkii ku dhageysanayay uu ma aragtay awood u yeesho haddii ilaahay ku idmo intaas casharka soo koobayna aad baa mahadsantihiin إن شاء الله intaynan qaybaha kale ee casharka u gudbin waxaan rabnaa in casharkan uga faa'iideysano sida ugu fiican ee kursadan uga faa'iideysan kartid iyo isla markaa qiimeyn naftaada ku saabsan lambarka koobaad maadaama qaabka aad wax u baranaysid ay tahay qaab online ah waxaa wanaagsan inaad raacdo tillaabooyinka soo socda number 1 casharka adigoonan casharkii koobaad fahmin ha isku dayin inaad u gudubtid casharka labaad taa waa qodobka koobaad
qodobka labaad marka labaad waxaad samaysataa wixii iska dhaadhici oo ka dhig inaad cashar toosa dhiganaysa sababta wixii already waa cashar toosa waadan iswarfidin macallinka laakiin wixii waa cashar toosa therefore buug iyo qalin soo diyaarso ama wuxun aad note ku qorto soo diyaarso oo markaa waxaa laga yaabaa waxaan cashar ku jirin iyo sharaxaadda ku jira inaad wax badan ka faa'iidin marka therefore qalin iyo buug yar wuxun aad meel ku qoratid samayso oo ma aragtay wixii si maskaxdaada wuxun aad soo qabsatid ay hadhow ay kaaga haraan haddii laakiin aad iska dhageysatid waxa markaa dhageysanaysid way fudud yihiin laakiin inaad ku camal fashid oo hadhow noloshaada ay ka muuqdaan ayaa adkaanaya ama dib hadhow u xasuusatid ayaa kugu adkaanaysa therefore marka waxaa isku daydaa in aad ma aragtay note xun aad qoratid isku day qodobka saddexaad maadaama wixii uu yahay aynu ka hadlayno qaab practical oo noloshaadii toos ugu dabaqi kartid isku day markaynu tusaalayaal ama waxaan samayno inaad bal adigu inaad qoolita soo xidhatid oo kale meel gashid oo kale bal aad qudbaysid aad wax sheegtid aad wixii isku daydid inaad samaysid si nidaamka noocaasa therefore marka waxaa kaa baxaya inaad ma aragtay systemkii aad la keentid tusaalahaan waxaa laga inaan exercise kuu dirno oo kudho halkaas aad oo kale saas samey oo kale waa inaad markaa aad isku daydid inaad ma aragtay exercisekii ama ma aragtay wixii aan kuu dirinay ama layligii inaad ma aragtay haddii ebaydmo aad ka jawaabtid qodobka kale oo meesha ku jira waxa weeye in aad maxaa la yidhaahdaa eeba idankii aad maxaa la yidhahdaa aad samaysid assessment oo aad dhahdid mar walba maxaan bartay maxaan faa'iiday wixii su-aal oo wixii ku qabsadoo kalena qaab su-aale ah aad maaragtay comment ahaan aad maaragtay unagu soo dirtid waa hagaag qaybtan marka waxaan sidoo kale u gudbaynaa self assessment waxaan ognahay presentation skillsku inuu yahay hawl miran siba markii lagu dhaho dhowr boqol oo qof hor istaag waxaa laga yaabaa inuu sii adkaado oo ma aragtay dadka qaybtood wuxuu xitaa uga maxaa la yidhahdaa uga culusyay baa la yidhahdaa maska baqdinta maska ama buur qofku inuu ka dhaco baqdinta uu qofku ka qabo iyo waxaa la yidhaahdaa inuu dadku in qofku intuu soo hor istaaga dad u qudbeeyo tan baqdinta maska ayaa oo yar oo tan wax soo jeedinta ayay dadku ma aragtay ka baqdin badan yihiin ayaa la yidhahdaa maxaa loo dhahayaa runtii waxaad dareemaysaa markii first time lagu dhaho soo istaag oo dadka ma aragtay hortood ka qudbee waxaa laga yaabaa inaad gariirtid waxaa laga yaabaa hadalkiiba inaad qaban weydid waxaa laga yaabaa inaad ma aragtay wareegtid waxaa oo dhan waa normal ha isdhihin ma aragtay dadkaad ka liidataa laakiin waa dhibaato ama maxaa la yidhahdaa marxalad laga soo gudbo oo qofka hadduu u tababarto uu runtii markaba uu ka wareegi karo marka waxaad samaysaa soo qaado maxaa la yidhahdaa qalin iyo warqad waxaynu qoraynaa sida ay chartigan kaaga muuqanaysa isticmaal plus iyo minus marka maxaad ku fiican tahay markii wax soo jeedinta la dhaho maxaa ku xun tahay markii wax soo jeedinta la dhaho marka dad wax soo jeedinaysid bal maanta haddaad taad boqol qof soo hor istaagtid aad wax u qudbayn lahayd maxaad is leedahay waad ku fiicanaan lahayd maxaa is leedahay waad ku liidataa exercisekaas yarka insha allah meel ku qoro ka shaqee intayna markaa cashir kale u gudbin markaynu koorsada dhammaynana bal dib u fiiri wixii hadda mar labaad baynu qiimeyntaas aad dib u samayn doontaa eeba idankii markaasaad waxaad fiirin doontaa bal heerka bal maxaad fahantay oo dheeriya kuu soo kordhay insha allah aad ayaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu